okay si trader sayn u sameynayno waxa weeye marka may for funded bips oo kale ka iibsatid accounti si trader ku dalbatid waxa timaada halkan imo haday markii ay tahay aad samaysanaysid haddii hore u samaysatay laakiin afahmi weydeen muuqaalka qaybta dambe waa u boodi kartaa okay marka google-ka caadiga ah si trader ku qor search u dir waxa ku soo baxay sidaan logodoodu waa taan si trader waa https ctrader.com wax kale ha gelin fadlan marka aan ku dhufano marka si trader forex algorithms okay markaan ku dhufano sidaan inoo saaraya fiid download si trader aan soo on marka wuxuu leeyahay cookies ka aqbal wixii necessary aqbalaan iri intaan download iska sii dhihi karaa oo waxaan haystaa desktop windows kana haystaa windows baan haystaa okay marka windows ka download garay halkan u saaraya waa bilaabay already 2 MB maraya okay ka noqo waxaan tagayaa si trader markaan ku noqdo home-ka halkan oo kale waxaan u jeedaa korkan u sareysa in uu isiinayo meeshan profile-ka fiir this area profile-ka markaan ku dhufto login iyo sign up markii u horeysay haday tahay aad samaysan sign up dhahaysa daaqadan kale ku saaraya marka fiir daaqadan ku geynaa waxa kule email-kaaga geli email-kaygan markaas rabaa inaan geliyo where's my email gmail-kayga all right gmail-kayga waa kan password gasho buu leeyahay password basaysanaya adag oo fiican oo aan la iga jabsan karin la iga xari karin nambaro iyo xarfo iyo wax isku jira ah robot ma ihi baan iyadana dhahaya robot inaan ahay waxa ku cadeysay stairs-ka taabo ma had wax ku siinaya mar wuxuu dhaay motorcycle taabo diyaaradaha taabo marka stairs-ku waa jaranjarooyinkii tan waa jaranjaro salaan jaranjaro ayaa jardiin waxa rabtid halkan oo ku jirta okay tiki halka jardiin kuma jiro this area is jardiin saddexdaas aan arkay okay waa iga aqbalay wuxuu leeyahay create si trader id si trader samayso okay id-gi si trader markaan samaystay uu is xiray wuxuu i geenayaa gmail-kaygaan tegaya wuxuu soo dirayaa okay this coin market cap mararka qaarkood wuxuu tagaa meesha loo yaqaano spam-ka haddaan tago ka khasab spam-ku ku jiraaba inbox-ka ka raadin spam-ka ka raadin spam-ka markaan dhaho wuxuu leeyahay dear goray waa email-kayga intiisii hore wuxuu leeyahay email-kayga waa kan id-gaaga waa kan marka confirm email baan dhahayaa email-kaaga xaqiiji okay where's my look safe okay waa safe baan iri waxa weeye message-kan waa safe okay muxuu iga diidayaa waxaan rabaa inuu ii qaato inuu safe markaan iri horta wuxuu ii galay inbox-ka caadiga ah uu tagay waa kan wuxuu leeyahay confirm email marka spam ka soo saar inbox-ka kan waa safe kadib markaan dhaho your si trader is now active buu leeyahay soo ma jeed close baan dhahayaa okay si trader-kayga waa active hadda waxaa ka geli karaysaa wuxuu leeyahay account furo live samayso waxaa samayso adiga mar email-ka aad ku samaysanaysid waa inuu noqdaa email-kii aad ku samaysatay my funded bips account-ka aad kaga qaadatay automatic kugu jiri doona marka halkan ma rabno inaan joogno qaybta oo dhan iga qaad waxaan tegayaa okay markaan email-ka geliyo password-kan aan geliyo labadii aan soo sameeyay weeye waana email-kii aan funded bip account-ka kaga qaatay halkan waxaan dhahayaa keep me login in saxdan saaraya and then log in baan dhahaya okay markaan log in dhaho wuxuu leeyahay save garayso password-kaaga save garayn maayo sidoo kale igu soo saaraya wuxuu leeyahay si trader-kaaga waa la update gareeyay ma ku raacsanta acknowledgement-iga yes marka halkan sare wuxuu ku dhigi doonaa wax walba aad uga baahan tahay akoomadaada inaad kala bedesho tusaale aniga hadda ka si trader-kayga isticmaalo email-kayga ma rabo inaan ku tuso laakiin akoomo badan ay igu jira halkan oo kale waxa igu jira dhowr akoon oo akoonka waxa igu jiraya domini market-ka aan isticmaalayo kuwa live-ka aan isticmaalayo fundbip aan soo akoon badan aan ku isticmaalo marka sorry halka waxa ka bedeli kartaa
waxaa ka bedelaysa akoomadaada ka bedeli kartaa tusaale haddaan halkan oo kale ku dhufto hadda wixii tusaale inay igu jiro software spotware account number waka waa 100 waa $1 kaliya ku jirta markaas kuu qoraya marka hadhow kala bedelaysa adiga ama fund bib arabtid halkan oo kaliya taabanaysa bas haddii emailkii aad ku furatay iyo ay isku mid yihiin akoonka ka ku samaystay traderka ku samaystay ay same yihiin waxba marka ma ka qaadi doono halkan ku ooli doona okay aynu isla fahanno marka shaashada afkaan halkan oo kale watch listigii waa lacagihii oo kale tusaale popular marketska oo kale haddaan qalinka u qaato wuxuu leeyahay mid ku qoro mid samayso بلاسنا واديه كرا wax ku soo darso watch list name marka balaaska markaan taabto watch list name kayga waxaan ku baxsanayaa xataa tusaale magacayga aan u baxsanayaa Seki oo kala u baxsanayaa Seki 2024 oo kala u baxsaday okay aan iri okay markaan dhaho halkan oo kale waa watch listigaygi okay marka aan ku dhufto marka lacagtan oo kale uu ii furaya marka lacagta ma rabo city group oo kale waxaan ma rabo inaan iska saaraan raba qalinkaan u qaadanaya waxaan dhahay favorite-ka maaha ka saar kan iga saar euro 500 kan saar Bank of America NCDUSD contract gareeya saar UK 100 AUD JPY qashinkan oo dhan iga gur aan soo on chicho ku trade gareeya soo celin doona USD CHF iga saar US 100 iga saar AUD oo kale iska daa USD iga saar silver saar USD JPY da USD 600 iyo waxaan saar euro JPY saar kan saar okay bitcoin saar GU saar fiiri lacagaha arabtid waxa saaranaysa starka u deynaysa marka ku soo darisid art symbol aad dhahaysa tusaale hadda waxa iga maqan euro USD oo kale euro US dollar and then iyadana starka ku soo daraysa sax baa saaraysa halkan hoose waa ka noqonaysa markaan ka noqdo waxaan arkayaa watch listigaygu waa Seki inta ii saaran lacago soo ma jeedin okay inta wax kale u qaadan watch listiga hadda isla fahanay halkan oo kale markaan tago positions waa trade-ka marka furan at the moment of speaking marka lacagta furan weeye halkan oo kale waxa ku yaala balance-ga equity-ga iyo lacagta ku socota profit and loss and so on order risk waxa weeye lacagaha buy stop sell stop buy limit-ka sell limit-ka kugu yaalaan price alert-guna kuwa ah ku xidhatay saacad haday jirto history-guna waa trade-adii xidhay oo hore اسبوع tagay weekii tagay maalintii tagtay aan soo on transactions-kuna waa lacagta intaan deposit gareysay oo waa $1 tusaale hadda waa demo waa $1 marka withdrawal kala baxay oo kale halkan ku soo qormaysaa aan soo on marka watch listiga haddaan ku noqdo AUD USD ku dhufto waxaan arkayaa AUD sidoo kale u soo baxaysa halkan marka aan ku dhufto idin sharaxo kan favorite-ka ay saaran saxdan oo kale waa AUD USD waan joogaa Australian dollar euro US dollar meeshii u hooseysay maanta gaadhay waa kan 0.65116 meeshii u sareysay ay gaadhay waa kan spread-keedu waa 0 esta hadhow iska eeg 0.1 0.30 marka waa spread-kii halkaas change-gan waa inta maanta isbedeshay waxba kaama gelin haddaan hadda bottom-ka ku dhaafto sell and hope suuqa sell buu gelinaya haddaan kan taabtano buy buu gelinaya haba igeeshay lodkee baan ku galiyaa lodka ku jira waa kan 20 okay marka waa bedelaya ma rabo inuu 20 oo kale igaga furo suuqu ama wax u dhow marka waxaan rabaa inaan iska bedelo haddaan ku dhufto hadeer wuxuu leeyahay 0.01 0.05 aan soo on marka wuxuu ku fiican lodka isaga ku qorqoray hadda lodka u weyn aan ku gali karo 20 maaha one way inta kale way ismoodobayso ma jeed kuma gali karo one aan ku gali karaa maadaama $1 yahay 1200 ah okay lod halkan oo kale marka intaan trade furin halkan oo kale waa new order ka hadaa rabtid buy stop sell stop buy limit sell limit arki doona laakiin horta sell baan bay sell marka ay raahdo waa kan order-kaaga waa la qaaday saxda haduu saar order-kaaga waa saxan yahay marka waa fiiri okay copy waxaan galay iga noqo fiiri hadda day AUDs maxaa ku qoran hal positions ka ku qoran hal macna hal trade ay furan halka trade AUDs uu ka furan marka aan ku dhufto waa kan hadda halka tago oo kale sell baan ugu jiraa lacagtaan ku dhufto waxaan tagayaa shaashada oo kale si aan u weyneeyo halkan aan tagayaa this one oo 1 hour ka ku xigta okay markaan weyneeyay waxaan arkayaa in suuqaygii uu saayahay waa kala bixin karaa waa isu dhaweyn karaa waa yareyn karaa aan soo on marka stop loss-kii TB-gii baan rabaa inaan ku xiro hadaba haddii aan hal meeshii ku qoran tahay ku dhufto maxaa soo baxay SL soo ma jeedid iyo TB
SL-kayga saas u jiidaya bas haddaan tusaale halkan oo kale dhigo waxaan ku khasaarayaa 7.64 euro ah marka akoonkeena euro ah akoon dollar oo furan doona oo deema ah marka intaadan akoon kale furan si ay u sii tijaabisid TB oo kale isaga inta qabatid dhacsiisid baa soo jiidaysa halkan oo kala keentay tusaale haddii stop loss kuugu dhaco waxa khasaaraysa $64 haddii TB ku dhacona waxa faa'iideysa $104 waa sidaas hadda markuu hoos soo aaday -2 igu haya halka wata lacagta ku qoran okay halkan maxaa kale oo ka samayn kartaa trade-kaaga waa edit garayn kartaa haddaan kan ku dhufto kale trade-ka edit garay way qayb xir aan soo on close half oo kale markaan rabo lot size kan bedelaya fiir lot size-kayga oo kale marka half xiraayo 0.7 oo kale ku dhufanaya عندما يقول لي waxa xidhaa 0.7 half ah fiiri 0.3 lot iska xir oo kale okay buy markuu ilaa macnaha maadaama sal ugu jiray buy egg fiiri marka sal ugu jirtay oo lacagta ah xidhaysa x dhahaysid waa buy garaysay way macnaheedu fiiri waad buy garaysay ilaa marka wax iska iibinaysid ilaa buy heshid waxa weeye lacagtaada socon mayso marka wax soo iibsanaysid ilaa seller aad heshid marka 0.7 ba ay furan hada lotkii half saasa loo xiraa kan oo kale hadaan taabto waxa weeye double gare wuxuu leeyahay double 0.7 mar rabtaa sel kale inuu ku furo oo double ah marka gacantii kaaga dhicin badana waa riski halkan oo kale oo macnaha waxa weeye lot suuqan waa ka helay double laba isaar kan hadaan taabtona waa reverse gare sel baan ugu jiraa reverse position macnaha selka reverse gare hadaan okay dhaho bay u qaadaya fiiri order filled 1 gare 1.4 oo double abaan bay gare fiiri marka haddii aan tago ka noqdo position ka tago position is aan tago okay where is my buy okay selkii buu xiray oo buy u galay yes selku xiraya marka hore and then buy u galaya marka that's not good for you ina reverse ga iyo xeelaha inuu kuma shaqeysano badana waa waxaan dhahnaa you know stay away from it x hadaan taabtana waa iska xidhay dhamaan waa xidhay marka gacanta iga dhacday waxa iska ilaaliyo waxaan aad u update u yahay indicators oo kale way halkan candleski way halkan hadaa rabtina line ka dhigatid aan soo online waa ka dhigan kartaa hadaa doonto candleka igu celi halkan time frame ka bedeli kartaa daily waa kan hadaa rabtid 1 minute ki marka time frame badan waa ku soo darsan kartaa oo inta 3 dot ka hadaan taabto tusaale 3 minute oo kale ku soo dar 5 minute favorite ka isaar 15 minute isar 30 minute isar soo soco 4 hour ka favorite ka saar soo soco daily ka saar weekly ka favorite ka isar anda markaan ka noqdo fiiri time frame markaan ku dhufto maxaa soo baxay intii aan hadda soo saartay waa soo baxay iyagana marka inta waa isla fahanay sitting kan oo kale waa meesha aad bidka iyo askiga ka qarinaysid ama ka soo deynaysid marka iyaga sidooda u daaso waxaba check saar hadaan marka inta kaga noqdo by story sabta ku tusaya AUDUSD baan joogaa fiiri waxan oo dhan waa AUDUSD waxeedii markaan rabo inaan si guud u noqdo waa idin tusi doonaa laakiin by story sabta baan dhiganayaa new order oo kale markaan dhaho wuxuu tusiinayaa limit oo yeelanaya sell limit iyo buy limit stop oo yeelanaya sell stop iyo buy stop iyo stop buy stop limit iyo sell stop limit yeelanaya marka labadan oo kale waa muhiim ah tusaale markaan dhiganayo limit oo kale waxaan gelinayaa tusaale sell limit aan gashanaya waxaan raasel limit aan galo tusaale sell limit waxa suuq kor u socdaa rabtaa inuu meel kore markuu yimaado asal u soo gashid lotkii oo kale halkan aan ka bedelaysaa price-kii oo ku qoraysaa expire hadduu leeyahay tusaale xalaa saacad kadib hadduu ifi way trade-kaas ha dhaco laakiin badan expire anima isticmaalo take profit-kii haddaan ku dhufto oo kale iyagana oo qoraysaa 20 bid baa rabtaa take profit stop loss ko kale inta number ku qori lahayd 20 bid stop loss ku save garaysan automatic marka waa bedeli kartaa hadii kartaa markuu area-da yimaado 10 bid stop loss aan rabaa inaan ku qaato bes negative 10 isaga marka stop loss okay negative kii where is my negative okay let us see negative ka inaan ku dartaa negative 10 bid 10 bid baan ogolay waa dhaysay TB ga 20 bid ogolay and then place baan dhahay place markaan dhaho fiiri inuu iga fur wax yar u jira waa furay trade-kayga waa furay way meeshu taagnaa baan dhigay fiiri oo ka uu furay trade-kayga sababtoo link lambarka aan dhigo iga fur baasa aha extra kala hadaan taab trade-kiisa ku xidhmaya okay overview hadaan ku laabto hadaan tusaale hadda lacagtan buy u galo buy baan ugu jira waxa ma demo waa tijaabo
bay markaan u galo maxaan idin idhi stop losska oo kale ku dhufo stop losska soo jiid bas halkan lowga hore oo kala dhigtay uu ku tusaya inta khasaaraysid TB-gana halkan oo kala geys 226 faa'iideysa sokotay loo doora khasaarta tusaale waa saas kale okay AUDUSD ay furan ka soo noqo hadda waxa USD JB waa inuu ay furantaa iyadana sell ugu jira tusaale ka soo qaadba lacagtan sell baan u galay meeday where's my sell eg marka chartiga wada furtid si aw qaadatay halkan oo kala taabanaysa haday indicatorka iyo editingka ku dhex jira centerka and then waxaan dhahayaa lot size-ka intuu ii ogol yahay 0.4 buu kan ii ogol yahay fi sababta taqaanaa sababtoo ah trade kala ii furan leverage-kii waa diidaya okay 0.5 baan sell ku iri stop loss-kayga ka soo qaad kor baan dhigay TB-gana hoostaasan iska geeyay wuxuu ku tusaya inta khasaare leh inta faa'iido lahayd ka soo noqo USD JB maxay u jeedaa hal position ma jeed kor eeg USD JB way kaliya joogtaa haddaan bedelo oo aan ka dhigo lacagteedii AUDUSD uu gain doonaa laakiin wixii oo dhan buu soo saar marka wada noqo marka ka noqotid halkan oo kala tag positions laba position ku fur marka uu ku wada tusaya haddii aan laakiin ku sii dhex jiro AUDUSD kaliya aan ku jiro wuxuu tusaya wixii AUDUSD ku saabsan kor eeg marka mar walba halka iyaduna waa very important history-gayga oo kale positionska haddaan tago labada trade ba iga xigtana $1 buu isiiyey kana $6 buu isiiyey soo soco history-ga markaan tago history waxaan arkayaa dhammaan tradeska USD JPY dhammaan sax baa ii saaran waa macnaha way dhamaystirmeen lotkan ku galay falaadhu meesha u jeedo hadday hoos jeedo waa sell hadday kor u jeedo buy sell lacagtan ka faa'iido khasaaray waa khasaare faa'iido khasaaro intaan wada faa'iido ama khasaare waa kan markaan rabo inaan eego week oo dhan tusaale shalay oo kale hadaan tiragelin history baan tagayaa waxaan tagayaa tusaale yesterday markaan tago waxba filter reset filters ku dhufane yesterday-da u daa oo ka noqo hadda ilaa shalay ku tusaya eeg shalay waxa trade ma qaad sababta hadeen kan furnay hadaynu dhahno yesterday-da bedelo oo dhahno current month bishan socoto oo dhan itus wuxuu itusaya bisha socoto oo dhan wixii trade qaadatay aan soo okay waxaan kale uma baahnid copy iyo blotterkan iyo waxaan oo dhan uma baahnid marka wuxuu ku leeyahay dad kale oo trade gareynaya copy iyo waxaas waaye marka waa wax aan macno weyn sameeyeen kan 1300% iyo khiyaali way jirtaa laakiin don't follow it ka soo noqo trade-ka imo candle-lada imo wax trade kuma furna positionska waa 0 marka qaarkood waxa laga yaabaa gold ku dhex jirto positionski 0 yahay oo halkan sare gold ku qoran tahay hadda inta kaga nimaadno intaas waxaan tagayaa 3 dhibcood markaan rabo inaan xiro oo kale halkan oo kale waxay ku qoran email-kayga iyo username-kayga marka intani haddii email-kan aan ku samaystay fundbib khasab halkan uu ku galay akoonkaaga wata hore u sheegnay bartaas soo galaya email-kayga markaan aamin 3 dhibcood ku noqdo new order iyo waxaan oo dhan iska dhaaf manage trade account waan dhahayaa tusaale akoonkan aan rabaa inaan meesha ka saaro oo kale akoonkan iga hirgare baan dhahayaa hide account iga saar meesha markaan noqdo akoonkii uu iga hirgarayn doono hadda akoon kale waan furan karaa oo dheema create trading account haddaan dhaho akoon ii fur demo iyo live ma furan karo demo euro mise USD halkan oo kale waxay iga dhigtaa lacagta USD-da lacagta ku jirta waxaa ka dhigtaa $10,000 tusaale advanced-ka oo kale haddaa ku dhufatid waxaa u daysaa ka hedging-ka u daa kan waxaa ka dhigtaa leverage-ka oo kale 1-500 waa ka dhigan kartaa and so on create account haddaan dhaho fiiri wuu ii furay akoonkii wuu ii furay laakiin akoonkan muxuu yahay 10,000 kii kale waa aniga qariyay kii kale aan qariyay aan soo saaro si aan labada akoon kala bedeli karo manage trade account haddaan dhaho kan show account aan dhaho okay soo noqo labadii akoon baan halku arkoday kanna waa kii aan xoogaa khasaariyay hadda $16 kanna waa kii cusbaa marka xataa inta ku jirto ku tusaya kan cusub markaan ku dhufto isaga qudhiisu wuxuu rabaa inaan hagaajiyo oo aan sidii oo kale u hagaajiyo markaan gold oo kale eegno oo markaan eegno I mean AUDUSD maadaama leverage-kiisu badan yahay imsu ii ogol yahay talo fiiri akoon 10,000 waxaan ku qaadan karaa lot 30 haddaan dhaho sell oo kale day wuu furayaa fiiri waayo leverage-kiisa aad u weynaa stop loss-ka kale haddaan saa u riixaday oo halkan keen maxaan ku khasaarayaa 1800 haddaan faa'iidana waxaan khasaarayaa 40% faa'iida hadduu halkan yimaado 100% akoonku waa double gareysmaya marka waa leverage anaba leverage weyn furtay lacagtii ugu hayo fiiri
okay iyadana waa xidhay markaan xidho iyadana historygii baa u doonanaysaa aan soo marka I really hope inaa intaa fahamteen